aan bixino in circumference-kaas ay 3.4 tahay caddayn bixinayno waxaan ku caddayn karaa tusaale ahaan waxaan sawiri karaa haddeer circle baan sawiri karaa oo kale circle markaan sawiro waxaan tusaale ahaan oo kale diameter baan sawiraa diameter markaan sawiro xagal 90 aan ku dul sawiraa tusaale ahaan oo kale xagal 90 aan ku dul sawiraa xagal 90 hadda perpendicular bay ku tahay haddeer 90 bay ku tahay hadaan xagashiina aan u sameeyo tusaale ahaan oo kale aan xagashiina ii soo geliyo tusaale ahaan xagashi xagan aan ka sameyn karaa oo kale xagashaas waa 90 haddeer calaamada xagashi waa 90 marka circle-ka haddeer xaggan waan sii wadi karaa waxaan odhan karaa haddeer xaggan saas aan usii wadi karaa tusaale ahaan oo kale oo aan mini triangle-kii wixii waan kala qaybiyey min 4 qaybood afar gobol baan u kala qaybiyey kaya iyo kan iyo kan iyo kan marka intaas keligeed hadda waxay noqonaysaa 1 divided by 4 waxay noqonaysaa micnihi afar meelood oo meel micnihi waxaasay noqonaysaa intaa keliya ma garanaysaa xagash hadda aan kusoo wareegay xagash 90 intaa keligeed intan waa xagash 90 xaggan xagash 90 xagash 90 kan xagash 90 asna 160 way circle gebi ahaantiisa marka intaas maadaama ay sawiran tahay haddii aan raadinayo haddeer dhererka halkaa laga bilaabo ilaa iyo halkaas intaan casaanka haddeer aan mariyey waxaa loo yaqaanaa arclength intaa haddeer casaanka aan mariyey arclength baa loo yaqaanaa arclengthna way naqaanaa formulas lagu helo arclength wuxuu la mid ahaa xagasha oo lagu dhuftay loo qeybiyaan leeyahay 360 oo lagu dhuftay 2 oo lagu dhuftay pi oo lagu dhuftay radiuska marka haddeer waana garanayaa marka xagash waa 90 loo qeybiyey 360 oo lagu dhuftay 2 sababtakaas ay hor noqotay waxaas u qeybiyahay loo qeybiyey lagu dhuftay pi oo lagu dhuftay radius marka radius waxaan haysta 1 mitir haddeer diameter waxaan haysta 1 mitir radius wuxuu noqonayaa haddeer aan halkan 1 mitir haysto radius wuxuu noqonayaa 1 divided by 2 mitir bay noqonayaa marka intaa way isu qaybinayaa haddeer eberkaas way isgoosanayaan labada iyo labadaas way isgoosanayaan 9 qayb waa 1 kana 9 qayb waa 4 marka arclength wuxuu ii noqonayaa wuxuu noqonayaa pi oo loo qeybiyey 4 mitir waa mitirna waxa weeye aan cabirana waa dherer waa length-kaas aan cabirana sabab sura ula socda mitir marka haddeer dhererkaan haysto waa intaa keliya maadaama haddeer xaggan aynu soo saarnay waxa loo yaqaano wareegga ku wareegsan shayga gebi ahaanba dasar maxay noqonaysaa haddeer intani waa 4 meelood oo meelood 1 divided by 4 wey marka haddaan gebi soo wada saarayo gebi aan soo saaray kreesko dhan aan circle soo saarayo waa inaan 4 ku dhuftaa maadaama ay aanu qeybiyo 4 meelood oo meel wana halkan waa 1 2 4 aan qeybiyo waa 4 ku dhuftaa saan aanu helo complete gebi ahaan baan helo waxaan odhanayaa keliya oo lagu dhuftay 4 maadaama aan doonayo gebi ahaanba marka sidoo kale waa soo qaybinaya hadda labadan waa isgoosanaya 4 iyo 4 waa isgoosanayaan waxay soo baxaysaa marka circumference waxay noqonaysaa pi bay soo baxaysaa pi oo mitira maadaama ay pi soo baxdayna pina waa naqaanaa oo haddaan pi si fiican u qoro pina waa naqaanaa oo ah 3.14 waxaan odhanayaa circumference waxay noqonaysaa 3.14 mitir dhererka saasaan ku caddayn karaa haddaan rabo inaan caddeeyo qaacidan waa isticmaali karaa inkastoo loo isticmaalo badanaa arclength taas formuladan laakiin waxaan raadinaya haddaan ogahay inay formula doonaa isticmaali karaa haddaan doona waxaan isticmaali karaa diameterka radiuska haddaan doona sidan aan soo saari karaa haddaan magaranaysa ilaaway labadana midna ilaaway laakiin inaad garanaysa mar walba xiriir ka dhexeeya diameterka iyo radiuska iyo formuladaas ayaa aada muhiima saasaan kusoo saaraysaa waxa loo yaqaano circumference oo wax iska fudud insha allahu tacaala kaasaan ku jirna casharkeena asalaamu calaykum